dagaalka ka dhanka ah xagjirnimada. Howlgalka Midowga Afrika ee ADMIS waxa uu taageerayaa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya si ay u sii wado la dagaalanka xagjirnimada iyo fikirka kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab. qaybta barnaamijka hayaan ee toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa dadaalada wadajirka ah ee loo baahan yahay ee ay wadaan dowladda federaalka ah iyo culummada Soomaaliyeed si looga hortago aragtida xagjirnimada ee Al-Shabaab iyo ciribtirka fasirka qaldan ee diinteena Islaamka laga bixinayo oo ay adeegsanayaan kooxaha argagixisada ah. Nagu soo biir oo dhageyso barnaamijka toddobaadkan maalmaha Jimcaha iyo Sabtida oo ay taariikhda ku kala beegan tahay 20 iyo 21 Oktoobar. Kala soco idaacadahan. waxaad sidoo kale barnaamijkan ka dhageysan kartaan YouTube channelka ATMIS.